waana salaamay dhammaantiinba. waxaanu ka sheekaynaynaa xukuumaddii ugu awoodda badnayd ee islaamiga ee ugu dambeysay ee dhul islaam xukunta ama masaaxada dhulkeeda sugan yahay waa dowladdii Cismaaniyiinta taasoo jirtay 6 qarni ama 600 oo sano. 600 oo sano ka bacdi maanta waxaa ka soo wareegtay dumitaankeedii 103 sano. haddaba 103 sano waaye ninkan aad aragtaan waa Cabdilxamiid Athani oo ah boqorkii 1903 isaga iyo boorkiisii qoladii ugu sareysay u ejitay guddi uu la areesan jiray isaga iyo guddidiisii uu la areesanayay Yurubta u badnaa ee doonayay inay marun ka takhalusaan dowladdii ugu awoodda weynayd xilligaas ee ka talinaysay ilaa qaaradda Yurub bar ka mid ah qaaradda Afrika bar ka mid ah Aasiya. dowladdaas oo ay hogaaminayeen qabiilka Atrakta waxa loo yaqaan oo ku aasasmay qoladaas taariikhda asaasitaankeeda kama hadlayno imika laakiin waxaan ka hadlaynaa dhamaadkeedii sida ay u dhamaatay. haddaba waxaa jirtay dagaalkii koowaad adduunka oo ahaa 1914 ilaa 1918 waxaa jirtay in loo kala baxay laba xulafadii uu hogaaminayay ay waliba inkastoo Mareykanku mar daba soo galay laakiin Mareykanka, Ruushka, Talyaaniga waxa wada socday wadamo badan iyo Ingiriiska oo xulafo ahaa iyo sidoo kale qolo la oran jiray dowlad markis la oran jiray oo ay ku buuhoobeen Bulgaria ay ku jirtay sidoo kale Jarmalka adugu wadamo saa u kala safan bay ahayd. wadamadaas dagaal faa dhex maray qasab waxay ku noqotay dowladdii Cismaaniyiinta inay go'aan khaldan qaataan markay iyagoo hadba qof waxbay eegayeen laakiin adu go'aankoodu wuxuu noqday inay dagaal ka qayb qaataan. haddaba ka qayb qaadashadii ay dagaal ka qayb qaadanayeen waxay dhabarka saareen xulafo la noqdeen dowladda loo yaqaano dawla ama xulafadii loo yaqaanay ay ku jirtay Bulgaria iyo Jarmalka iyo ku jireen xulafadaas u raacay. xulafada markay raaceen waxa dhacday isla 1900 iyo dagaalkii intuu jiro gudaha lagu dhex jiray dowladda Cismaaniyiinta waxay ahayd dowlad dhaqaalaheedii isdimay furfurantay marka hore way yiriqay sababta dagaalada inay dagaalka ka qayb gasho ku kaliftay waxay ahayd dhaqaalaheedu yaraa iyadoo istir xulafa ka dhex baaro meesha iyadoo waxyaabo badan filanaysay. hadda dhamaadkii labada dowladood markay islaayeen ama waxa leeyahay xulafooyinkaas islaayeen waxa dhacday in heshiis la kala saxeexdo nabadgeliyo. heshiiskii markii la kala saxeexday dowladdii Cismaaniyiintu ila gaalama ka horreysay ilaa ku soo dhex dhacday waxay ku kala fidantu maadaama dhaqaalaheedii yaraaday go'aan khaldan qaateen dagaalkaana waxay ku lahaayeen kaalin aad muhiim ah oo aad bay ugu dagaalameen marinada lagu dagaalamayay ee professor iyo loo yaqaanayo marinadaas oo dhan deegaanka lahaysay marka ciidankoodu waxay ka dhigan tahay inay dagaalka aad uga qayb qaateen dhaqaalahooduna yaraa. dantu waxay ku kaliftay markii dambe inay heshiis la saxeexdaan wadamada saxaan Jarmalkii iyo Magarasa ay iyagoo ka tanaasulaya waliba heshiiska waxa la socda heshiis iyagu wax ku helayeen ma heshiiska waxa la socda inay ka tanaasulaan masaaxad dhan ama dhulalkooda qaab ka mid ah oo Yurub intii ay haysteen wadamo badan baa jira ay haysteen Bosnia wadamo badan oo imika jiro laakiin xilliga ku jira dhulweynihii Islaamka ee Cismaaniyiinta adugu markii dambe waxay noqotay heshiiskii markii la kala saxeexday dhul badan ka tanaasulaan iyadoo markaa heshiiskii ay la gashay dowladdii Cismaaniyiinta ee Malik Sultan Cabdilxamiid Athani uu hogaaminayay waxa ka soo dhex baxday oo ka faa'iideysatay jabhad wadan jiray ninka loo yaqaan Mustafa Kemal oo ahaa imika dowladda aasaasaha dowladda Turkiga kuna xusan oo aabihii Atrakta u yaqaanaan imika ninkaas oo cilmaani ah ka soo horjeeday islaamka iyo qaabka uu yahay laakiin kamid aha qalbiilka Atrakta oo cilmaani ah baa miduu ka faa'iideystay heshiiskii maray ee danta ku kaliftay markii awood dareysay dowladda uu hogaaminayay saltanadaas guunka 600 qarni jirtay ama 600 sano jirtay. inta ka bacdi wuxuu ka dhex dhawaaqay magaalada Ankara loo yaqaano inay jabhadaasi jirto. jabhadii waxay heshiisyaduna la saxeexatay wadamada ajaanibka wadamo badan bay xulafo la samaystay iyagoo ay doonayeen meeshii qarqiyaan dowladdii meesha joogtay. adugu yaan hadalku mudaaline 1922 markii la gaaray waxa si buuxda loola wareegay boqortooyadii oo la riday dagaal dhex maray jabhadaas oo ay gaaladaas
wadamadii ama qarbiga ama Yurubtu ay hogaaminayaan ay ku rideen saldanadii 1922 waxa la sameeyay caasimada Ankara loo yaqaan imka bari hore caasimadeedu waxay Istanbul boqortooyada Istanbul bay sababta Ankara looga dhigay jabhada ka bilaamatay kacdoonka ku ahayd Mustafa Kemal hogaaminayay baarlamaan baa halka laga sameystay 1922 maxaa lagu dhawaaqay inay jirto dawlad jamhuuriyad Turki loo yaqaano taas ay soo gabagabowday saldanadii 600 sano soo taxnayd marka dhamaadkeedii halkaas ku ekaa ilaa ay baarlamaankaasi dawlad Almaaniya markii dambe la wareegtay dhulkeedii sidoo kalena qoladii loo yaqaanay ihtilaalka ama qolooyinkii taageeraya ama gumeystiyaasha wadanka soo galay ilaa wala kala qaybsay dawladda Ismaaniga heshiis baa la saxeeyay Mustafa Kemal iyo xirtaasi adoo way ka saareen wadankiisa ay kaga saaraanba inkastoo iyagu heshiis ahaan ay isla socdeen kabacdi markay ka saareen waxay noqotay markaa in la isugu yimaado ay dawlad Turkiya la taago oo atraakto xukumaan oo xuduudkeeduna magaranaysa aad iyo aad u kooban yahay oo wadamo badan laga tanaasulay Urdu laga tanaasulay Masar laga tanaasulay magaranaysa ilaa iyo oo waxay uga yaqaaneen wadamada Yurub in maadaama dawladda awood weyn ay dawladda Ismaaniyiintu inay tahay gumeyste imika Soomaaliya waxaan ka horownay wadamadii Ingiriiska horownay Faransiiska horownay Afrikada ama Afrika u saasay dhaca laakiinse xilliga waxa uu yaqaanay inay gumeysanayaan wadamada wada Islaamka ay haystaan ee dhulka Ismaaniyiinta hoos imanaya ama dawladda Ismaaniyiinta hoos imanayay in la gumeysanayo iyagu haystay laakiin taa bedelkeeda ma yahayn oo lama gumeysanayn iyaga gaalada u yaqaanay waana markii dambe la qaybsado dhulka marka dawladda Ismaaniya waxa loo yaqaano dagaalka waxay ka qayb gashay 1924 ilaa 1926 xilli bay noqotay 22 aad bay u dunto dagaaladii lagu qaaday iniga Mustafa Kemal loo hogaaminayay